halkan maaha furmaha dagaal ee dalalka Syria iyo Ciraaq oo ay diriir ka socoto laakiin waa isgoyska Soobe oo muuqaal hor la yeeshay dhulka ayaa burburay iyo meelo kale oo kamid ah dhismayaashii halkan ku yiilay dad badan ayaa maqan dadka maqan markii hore waxa ay ku jireen sida la sheegayo goobo ganacsi hotelkii Safari iyo maqaayadaha qaarkood halkan ku yaalay ka cunteynayeen kuwa kale ayaa iyaguna maqan oo la sheegay in ay saarnaayeen gaadiidka dadweynaha oo halkan isticmaalay wadajir ayaa looga qayb qaadanayaa sidii loo soo saari lahaa meedad hor leh oo laga helay dhismayaasha hoostooda gurmadkan waxa uu rajo gelinayaa waalidiin badan oo ku sugnaa goobta ay mashaqadu ka dhacday shalay xalay ilaa iyo saake kuwaas oo ilaa hadda baadigoob ugu jira caruurtooda sida aragtaan qof kale oo hor leh ayaa midkiisa la helay sida la ii sheegay hadda qofkan muuqaalkiisa ma garan karno laakiin dadka qaar waxay leeyihiin waa dumar wuxuu ka mid yahay dadkii shalay qaraxan ku dhintay dhulka hoostiisa ku jira dhismahana ku soo dumay halkan sida la ii sheegay waxay ahayd meel dhismo sare oo dabaq ah laba qofood oo horey ayaa halkan laga helay waa qofkii saddexaad oo halkan ku jiro lama oga tirada rasmiga ah halkan ku jirto laakiin ilaa hadda ciidamada iyo dadka kala duwan ee halkan ku sugan gurmad ay ku jiraan oo aanay ka mid ah meeshan waxaan u soo raadiyay walaalkay ku geeriyooday magaciisa la yiraahdo Xabiib Xasan Dhuux Xuseen Xasan Dhuux waxa uu baadigoob ugu jiraa walaalkiis Xabiib Xasan Dhuux oo shalay markii ugu wardambeysay ku sugnaa isgoyska Soobe Xuseen waxa uu ii sheegay in walaalkiisu aroos ku jiray laakiin shalay uu muraaday isgoyska Soobe marka wuxuu ahaa aroos jimcihii hore aroos galay shalina jimcihii hadda la soo dhaafayna toddobadiisii ahayd asaate shalay uu soo baxay maalinkiisa sideedaad isagoo wadadan marayo Soobe yaa la sheegay inuu halkan qaraxi kula kulmay haddana kama hayno wax yacni maaragtay raq iyo ruux labaduba marka wallaahi waa markuu macnii dadkii noo sheegay ee uu la soo xiriiray ee taleefankiisa uu ka soo wacay ama waqtigaas uu la hadlayay waxay noo sheegeen inuu halkan marayay uu sheegay inuu hotel gorgor uu ka soo baxay uu soo daba maray wuxuuna soo marayay eeriyada uu qarax ka dhacay meeshuuna kula kulmay qarax dadka gurmadka sameynayay oo isugu jira shaqaale ka tirsan dawladda hoose ciidamada ammaanka iyo dad rayid ah ayaa ku sugnaan doona halkan saacadaha soo socda maadaama aan la ogeyn tirada saxda ah ee marxuumiinta ku hoos jira dhismayaasha uu burburka soo gaaray aweys maxamuud julco waartiyaan muqdisho